Paul Scholes oo daha ka rogay faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan khilaafka kala dhexeeya Lisandro Martinez. Halyeeyga kooxda Manchester United Paul Scholes ayaa daha ka rogay faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan khilaafka kala dhexeeya Lisandro Martinez, isagoo sheegay in daafacu uu mar fariin ugu soo diray barta Instagram-ka, taas oo uu sheegay inuu lumiyay ixtiraamkii uu u hayay Scholes oo ah falanqeeye ciyaareed. Scholes ayaa ka mid ahaa dadka sida aadka ah u dhaleeceeya Martinez muddadii 3 sano iyo barka ahayd ee uu joogay Old Trafford, wuxuuna mar kale weeraray xiddiga reer Argentina ka hor kulankii Manchester Derby ee Sabtidii dhacay, isagoo ciyaartaas hordhac uga dhigay barnaamijka The Good, The Bad, The Football. Halyeegii hore ee United ayaa su'aal geliyay kartida Martinez uu ku celin karo Erling Haaland, isagoo ku mahadsaday dhererkiisa iyo jirkiisaba. 24 saac kadib guushii Manchester United, Scholes ayaa soo dhigay barta Instagram-ka qoraal uu Martinez ugu sheegayo inuu aad ugu faraxsan yahay bandhigii uu sameeyay, uuna aqbalay martiqaadkiisii ahaa inay kulmaan. Waxaad ciyaartay kulan wanaagsan, aad ayaan ugu faraxsanahay. Sheekh sonkor la'aan iyo diyaari fadlan ayuu Scholes ku soo qoray bartiisa. Dhinaca kale, tababaraha cusub ee Chelsea oo go'aan culus ka soo saaray mustaqbalka Enzo Fernandez. Tababaraha cusub ee kooxda Chelsea Liam Rossiner ayaa ka hadlay wararka la xiriira mustaqbalka xiddiga khadka dhexe ee Enzo Fernandez, isagoo sheegay inuusan dhag u dhigin xanta suuqa. Rossiner ayaa tilmaamay in marka uu ciyaaryahan yahay heer caalami, ay mar walba jiri doonaan hadalhayn ka baxsan gacanta qofka, isagoo ammaanay bandhigii uu Enzo sameeyay muddadii yareed ay wada shaqeeyeen. Wuxuu si gaar ah u xusay in Enzo uu xanuunsanayay maalintii Sabtidii, haddana uu soo bandhigay firfircooni cajiib ah, taas oo la yaab ku noqotay tababaraha. Rossiner ayaa carabka ku adkeeyay in Enzo uu yahay ciyaaryahan Chelsea ah, uuna rajaynayo inay wada yeeshaan xiriir guul xambaarsan oo waqti dhow iyo mid fogba leh. Hadalkan ayaa soo baxaya xilli ay soo baxayeen warar sheegaya inay jiraan kooxo ay ka mid yihiin Real Madrid iyo PSG oo isha ku haya xaaladda xiddiga reer Argentina, kadib markii uu kooxda ka tagay tababarihii hore ee Enzo Maresca horaantii bishan Janaayo. Ugu dambeyn, Liverpool ama waxba, Xabi Alonso oo ku dhawaaqay go'aan ka yaabiyay dunida kubadda cagta. Xabi Alonso ayaa go'aansaday inuu ka nasto shaqada tababarnimo kadib markii si lama filaan ah looga eriyay kooxda Real Madrid, sida ay wareysay jariirada Marca. Alonso ayaa doonaya inuu waqti la qaato qoyskiisa, isagoo ka fogaanaya indhaha caalamka ee ku aadan kubadda cagta. Alonso ayaa la sheegay inuu go'aankan bedeli karo oo kaliya haddii ay kooxda Liverpool u soo bandhigto shaqadeeda. Tani waxay ka dhalatay jacaylka weyn ee uu qabo kooxdaas, waxaana la sheegay in mustaqbalkiisa tababarnimo uu hadda ku soo koobay Liverpool ama waxba. Alonso ayaa hore ugu soo ciyaaray Liverpool, isagoo kula guuleystay koobka Champions League ka hor inta uusan u dhaqaaqin dhanka Real Madrid. Si kastaba ha ahaatee, riyadiisa ah inuu hogaamiyo Liverpool ayaa laga yaabaa inay dib u dhacdo, maadaama maamulka kooxdu ay hadda kalsooni buuxda ku qabaan tababaraha reer Holland ee Arne Slot. Maalin wanaagsan saaxiibayaal, warbixintaana waxay qayb ka ahayd barnaamijkeenii bandhiga ciyaaraha oo aan maanta ku soo qaatay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalkan la soo